السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سو دوادا أصحابتا إن بدنا كلام مقنين وإذن كرر لجلنا إلا إسك جري من قفك بالآدم كإسك قبصة لكن حد إن شاء الله سيف عنا أسر غير علني إلا ده بدنا جري أو إحتاج كوسا داعي channel كنا كوسا داعي الرما إسك علوس هجرو أو channel ك حتى حيسينتي وأنا قل عشتي أو وحبا كوسا داعي إلا هذا فهم لا هاي مش أنا قل عشتو in badan YouTube baan la xiriiray laakiin alxamdulillah ugu dambeyntii waxaan la yiri ilaa 15 June hal suuq xayisiinta marka intaas adiga muddo ugu yaraan 2 bilood 3 bilood waan ugu qaadanaysaa inta aan sugayno marka intaas waa inta update ka aadin hayo maxaa kaloo cusub inaan dib u soo noqonay alxamdulillah mashquul kala iska jirin way jiraan laakiin hadda ugu dambeyntii dib ay u soo noqonay hadii aan gudagal marka muuqaalkeena galabta ama caawa ama xilliga muuqaalkan uu soo gaarayaba waxaan wax ka baran doonaa wax la yiraahdo speak English in 1 minute a day conversation oo laba qof ka dhaxeeyo oo lagu baranayo 1 minute a day qaab noocee aan English ka ugu hadli karaa like laba qof ka sheekaysanaya xaalad noocaas ah qof kamid ah labadaas qof ayaa isticmaalo xaalad noocaas ah soo English ku barto soo adi ahaan marka qofkan ma ku raacsan tahay mise soo sheekada marka hore aan kaga dhaco kadibna markaasi wixii aan ka fahanno marka haddii wax fiican tahay iyo haddii kalaba commentiga aad noo qoraysaan okay haddii aan gudagal mar conversationka waxaa bilaabaya Aamino iyo Cali laba qof ayaa wada sheekaysanaya gabar iyo wiil soo haddii marka Aamino aan ka bilaawno Aamino waxay leedahay hi means say tahay ama waxa waaye hello ama waxa waaye maxaa la dhahay salaam waaye salaan okay Cali marka wuxuu yiri hello macnaha waxa waaye isagana waa u jawaab salaam how are you sidee tahay so how are you waa sidee tahay I am fine waan fiicanahay how are you I am fine ana waan fiicanahay how are you adiga sidee tahay marka okay so qof haduu ku dhahaa I am fine how are you haduu ku dhahaa qof waxa dhaysa I am fine waan fiicanahay laakiin ha aamusan so waxa dhada how are you adigana sidee tahay okay so Amina then Amina waxay tiri I am good thank you waan fiicanahay aadna u mahadsan tahay okay Cali marka wuxuu yiri you are welcome soo dhawaw waayo qof markuu ku yiraahdo thank you waa in la dhahdaa welcome soo dhawaw okay Aamino waxay tiri what are you doing like maxaad sameynaysaa so at that time xilliga markaas su'aasha la weydiinaya waa ficil markaas uu sameynaya waa present tense oo markaas dhacaya okay so maxaad sameynaysaa like qof meel fadhiya oo timaaday saytan walaal fiican tahay maxaad sameynaysaa waa su'aal I am learning English waxaan baranayaa English okay so learning waa barasho English so ing macnaha meesha ugu jirta ereygaas ing meesha ugu jiro waxa waaye sababta ugu jirana waxay tahay waa ficil markaas dhacayo okay so Amina waxay tiri that's nice Ali marka wuxuu yiri English ayaan baranayaa so Amina waxay tiri that's nice I am learning English too ana sidoo kale waan baranayaa English so sababta marka Amina meesha uu joogto Ali meesha uu joogo waxa waaye labadoodaba English ay baranayaan okay Ali marka wuxuu yiri really oo cada okay like هذا Soomaalida waa isticmaalna yeah that's great waa wax fiican wax aad u wanaagsan okay Aamino waxay tiri marka yes I practice every day like I practice one practice gareeya oo one practice means boorsamento okay Soomaaligaas taas oo naqaana boorsamento or I train I practice waan ku celceliyaa oo mar kasta waan sameeyaa every day Englishka maana English maalin walba oo xilli walba like subax la galiyo ama galab la galiyo adiga daily maalin walba Englishka ayaan practice gareeyaa me too oo dhaha asagana Ali oo xiriirana sidoo kale I practice a little every day maana ayadu waxay tiri I practice every day but asaga wuxuu ku daray a little in yar like ma badno maana laga yaabo 10 daqiiqo 1 daqiiqo 5 daqiiqo 6 daqiiqo maalintii inaan bartaa maana okay marka Amina waxay tiri marka how many minutes do you practice meeqa daqiiqo ayaad maalintii English ka practice karaysaa because qofka markuu ku yiraahdo I practice I do a little mana wax yar aan qabtaa wax yar maxay tahay marka ilaa intee waa so I practice Ali wuxuu yiri marka I practice for 1 minute hal daqiiqo maalintii ayaan English ka practice karayaa okay so halka daqiiqo maalintii haday noqoto isbuuci waxay noqon kartaa 7 daqiiqo okay so I practice for 1 minute hal daqiiqo ayaan maalintii practice gareeyaa only 1 minute su'aal weydiis marka waxay tiri hal daqiiqo bisa yeah oo yiri
yes ha but every day maalin walba hal daqiiqa ayad marka waxay u malaynaysa marka isbuuci dhan ba hal daqiiqa inuu English practice kareeyo marka waxay tiri oo waa la yaabtay waxay tiri oh only 1 minute markaas wuxuu yiri no I practice every day 1 minute for every day means halkii daqiiqa hal maalin maalintii hal daqiiqa so isbuuci 7 maalin ah 7 daqiiqa aamin waxay tiri marka that's good okay waa wax fiican cali marka wuxuu yiri yes practice small practice is good macnaha practice-ka iyo hoos macnaha oo yar oo iska taba macnaha aanan awood badnayn sida maalintii 1 saac 2 saac 3 saac 6 saac ama tusaale subax saac soo kacay ilaa duhurkii wax barat kareynaa waxa ka fiican uu yiri inta yarta oo 10 daqiiqo 20 daqiiqo 5 daqiiqo daqiiqada aan wax practice kareey aa ka fiican okay okay so mina marka waxay dhahday what sorry okay mina marka waxay dhahday when do you practice like gourmet practice gareysa okay when do you practice when means waqti waa macnaha ma subaxiya ma duhurkiya ma galabtiya so when do you practice exact time gourmet practice gareysa marka aan marka wuxuu yiri I practice in the morning subaxi xilliga tahay markaas ma galabtiya ma asal marka wuxuu soo qabtay wuxuu yiri subaxi markaan soo kaco ama 4 saac ama 3 saac ayaan practice gareeya so morning means waxay ka bilowda 12 subaxnimo ilaa adiga inta u dhaxayso 4 saac okay 4 saac so intaas ayaan practice gareeya ayuu leeyahay okay and aamin marka waxay dhahday I practice in the evening ana marka waxaan practice gareeya galabtii so galabtii waxay noqon kartaa markaas waxay ka bilowda 9 saac okay 9 saac 3 to 6 evening galabtii intaas waa galabtii 9 saac oo duhur galabnimo ilaa 12 maqribnimo intaas ayaan dhigi karnaa waa evening cali marka wuxuu yiri that's nice macnaha waa wax fiican so where do you practice where means now place had meesha maxay when waqti so where waa place intee ku practice gareysaa marka cali marka wuxuu yiri I practice at home macnaha qolkayga ayaan ku practice gareeyaa oo aan macnaha aan ku muraajaceeyaa oo aan markasta wax isku baraa then aamin waxay tiri I practice also in my room too macnaha qolkayga ayaana ku bartaa oo macnaha qolkayga intaan dhex tago ayaan cashirkayga buugtayda qaataa cali marka wuxuu yiri good waa wax fiican okay aamin marka waxay su'aal weydiisay cali waxay tiri do you speak alone macnaha kaliga ma isla hadlo marka qolka ku jirto Ingiriiska baranays kaliga ma macnaha inta isla hadlo isu jawaab cali wuxuu yiri yes I speak alone kaligay ayaa inta meel qolka dhex tago qalin qaata buug qaata wax qoro akhriye isla hadlo then aamin waxay tiri I speak with my friends sometimes ani laakiin asxaabteeda marka qaar inta waco ayaan la sheekaystaa okay inta sina isla fana rajeynaya cali marka wuxuu yiri that's good that's very good waa wax fiican oo aad iyo aad u fiican okay aamin marka waxay dhahday do you like English ma jeceshahay Englishka like Englishka qof waxaa jira luqad jecel so adiga Englishka ma jeceshahay ay tiri markaas yiri cali yes I like Englishka aad ayaan u jecelahay sababtoo waa luqad minaha international ah so qofka haddii Englishka uu baranayo isku dayaa inuu barto waa wuxuu jecel yahay ma ahan wax uu iska keenayo ma ahan so aamin waxay tiri why do you like English maxay tahay sababta aad u jeceshahay Englishka marka like maxaa ku dhaliyay inaad Englishka jeclaato then cali wuxuu yiri because it's easy and useful so you see useful waa easy in la barto useful macnaha waa wax aad loo isticmaalo okay Englishka waa luqad aad loo isticmaalo oo caalamka ayaa laga isticmaalaa so waa useful hadda wadan walba wuxuu isku dayaa inuu Englishka ku hadlo sababtoo Englishka wuxuu noqday waa international Arabiga iyo asaga waa international so waa inaan barana waa wax inoo fiican anaga okay aamin waxay tiri yes it is useful hawa yes ay tiri ku raacsanahay because waa wax aad u wanaagsan oo aad muhiim u ah okay we can talk to many people like we can talk to many people like dad badan ayaan ku sheekaysan karnaa Englishka oo aan dhihi karnaa hey this is that waxaan waay kan waay so wadaba badan ay Englishka ku hadlo okay so Englishka waa luqad useful ah oo aad u muhiimsan okay so okay next aamin waxay dhahday marka that is true yes
wax sax ama wax runa. Okay, cali marka wuxuu yiri do you watch English videos? Ma daawataa videoyada Englishka? Because videoyada Englishka aad daawato waxay kaa saacidayaan inaad ku heshid kalsooni heshid confidence heshid aad noqotid qof Englishka macnaha akhrin kara ama ku hadli kara like confidence waxa kalsooni ayaad ku helaysaa macnaha daawashada muuqaalada like ani hadda wax idin baraya oo wax idin fahansiinaya filmaanta Englishka ayaa daawada videoyada Englishka ayaa daawada sababtoo ah waxyaabo badan aan ka sii bartaa like ana the perfect mihi laakiin inta idin ku dhaamo waa inta aniga aan Englishka aan buugta ka akhriya ama aan sameeyo inaan filmaanta ka daawado so filmaanta Englishka ayaa daawada filmaanta Soomaaliga because already of Somali waa ku hadalnaa laakiin wax noo muhiimsan waxa waa in Englishka si perfect ah uga hadalna so aniga ma dhaamo laakiin inta idin dhaamo waa inta yarto oo aniga aan filmaanta daawanayo so isku day inaad muuqaalada daawato mid dhahay filmaan xun daawada laakiin filmaan ama English muuqaalada ku baxa YouTube-ka ka daawada aamin waxay dhahay marka yes I watch simple videos mana muuqaalada oo simple-ka aska normalka caadiga ah English ku hadlanayaan daawada then Ali wuxuu dhahay yes me too okay aamin marka waxay dhahay do you understand everything like waxyaabaha muuqaalka aad ka daawanaysid ma tahay wax aad fahmaysid kulli saxal muuqaalada daawata hal sac soconaa wax ma ka fahmay no maya not everything macnaha maya wax soo badan kama faham laakiin waan isku dayaayna qof markuu isku dayo waa wax fiican so waa isku dayayaa laakiin completely 100% ma fahmooyi ayuu leeyahay Ali okay aamin marka waxay tiri me too but it's okay like an afterkiisa saasa ah laakiin dib ma leh waa gaari doona insha Allah okay so yes Ali wuxuu yiri yes it's okay we are learning because adduunkan macalinka afterkiisa waxay baranayaan so we are learning in the process of wax barasho ku jirtid wax waa qalday wax waa saxaysa so wax qaladka ayaa waxay tahay inaad wax ka barato okay do you make mistakes aamin waxay dhahay Ali do you make mistakes like khaladaad ma samaysaa oo waxyaabo ma ka dhacaan qaladaada Ali wuxuu yiri yes I make mistakes qaladaad waa iga dhacaan oo waxyaabo qaar waa qaldaa waxyaabo waa saxa so aamin waxay tiri I make mistakes too okay anna sidoo kale ficilada qaladaadka waa iga dhacaan laakiin Ali wuxuu yiri that's normal waa wax iska caadi ah aamin waxay tiri yes we learn from mistakes you see we learn from mistakes waxaan ka baranaa inaan qalad sameeyno qofka markuu qalad sameeyo ayuu wax ka bartaa like noloshana waxay tahay wax qalad sameey kadib cashir baro laakiin anaga badan waxaan sameeynaa waxaan baranaa kadib qaladaad iska raadinaa laakiin waxa khalad sameey wax sameey wax isku day inaad sameyso wax jijibi hadaa rabtid laakiin tomorrow wax baa ka baranaysaa okay so exactly Ali wuxuu yiri yes waa wax jiro oo runa so aamin waxay tiri let's practice now hadda marka aan practice gareyno Ali wuxuu yiri okay diyaar waa so macnaha soo qaatay muuqaalkan cashirkan soo qaatay waxyaabaha qaar uu soo celcelinaya waxay tahay inaan barano qaababka Englishka ereyada wada sheekaysanay simple Englishka qaabka loo isticmaalo okay muuqaalka inuu dheeraado mar rabo muuqaalka intaan ku soo koobaya waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkan wax ka fahanteen muuqaalkan kaliya kuma jiro in wax ka barataan kaliya waxyaabaha qaar ku jiro talooyin ku jiro okay talooyin laba ku jirto like qofka Englishka yuusan waqti badan maalintii gelinin at least 2 sadar ilaa 3 sadar hada maalintii akhriso fahantid macnaha loo isticmaalay qaabka loo isticmaalay fahantid maalintii 2 sadar 10 daqiiqo ka badan akhrinta buugta waa tala kale ugu jirto daawashada filmaanta Englishka ama muuqaalada Englishka ku baxa waa tala kale intaas waa talooyin ana idin siinaya waxaan rajaynayaa inaad qaadan doontaan muuqaalka meel dheer noo gaarsiin soo dad badan muuqaalka u daawadaan ay u arkaan wax ugu faa'iidaan haddii asxaab aad leedahay English rabto inaad barato noo soo xir oo barteena muuqaalkeena u share garee inta muuqaalkiisa xigay kulmi doon waxa idinkaga tagayaa sidaas ay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh